أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار منا وإياكم. إلهي سبحانه وتعالى ayaa mahad iska leh noogu kulansiiyey bartaan youtube-ka ee xasanaad. waa kanaal khayri ah runtii, dad badanne mataqaanaa khayrka way ka gaabiyeen, laakiin insha allah anaga waan sii wadi doonaa khayrka si dadka dhanka wacyiga diiniga ah mataqaanaa looga taageero oo ay wax badan u faa'iidaystaan. qof walba oo khayrka jecel insha allah waxaa ka codsanaynaa inay dadka kale walaalaheeda oo khayrka jecel sii gaarsiiso fariintan, ama waxyaabaha khayrka ah, axaadiista iyo waxyaabaha lamidka ay halkan laga bixiyo insha allah. maanta waxaan qaadanaynaa insha allah hal xadiid oo nabi maxamed sala alla alay slam ka sugnaaday. xadiiskaas waa saxiix bukhaari weliba. allah naga yeelo kuwa ku camal fala dadkana sii gaarsiiya insha allah. can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. رواه البخاري. nabiga sala allahu alayhi wasalam waxaa laga warinaya xadiidkan uu warinaya abi hurayra. wuxuu leeyahy nabi maxamed sala allahu alayh wasalam إذا qaala الرajulu liأkhiihi ya kaafir, qofka haddii uu ku yiraahdo walaalkiis gaalow, hadaa walaalka ugu yeertid liakhiihi lmuslim waaye, walaalkaa muslimka haddaa dhahdid gaalow, ha gaal ugu yeertid, faqad baa'a bihi axaduhumaa, ninkaas gaalka ugu yeertay ee muslimka ah ee walaalka ah ee islaamnimadiisa iyo muslimnimadiisa ay caddahay, dadkuna wada ogsoon yihiin oo adiga laftaada ogsoon tahay, haddaa gaal ugu yeertid iyadoona gaalnimadaas ku caddeen, nabi xasan wuxuu leeyahay gaalnimadaas ereygaas wuu soo noqonayaa, midkoodoona kusoo noqonaya labada qof. bimacnaa adiga gaal dhahday, hadduu ninkaas gaal noqdo xukunka u qaatay gaalnimadu ku dhacaysaa. hadduu naqo waayo laakiin adiga ayay dib kugu soo noqonaysaa gaalnimadaas. waa erey maanta in badan oo annaga naga mid ah markaa fiirisid baraha bulshada, dadka waxyaabaha ay qoraan aragtid, runtii gaalaysiintii in isgaalaysiiyo waxay noqotay waxa ugu fudud ee dadka qabtaan. waxaa arkaysaa culummo hadlaayo mataqaanaa mawaacidooyin gudbinayo, waxbay isku khilaafaan ama waxbay isku mandhaafaan, kadib dadkii kala taageeray waxaa arkaysaa kala xugminayo. kii kale martuu ninkan kii oo taageerin markuu argo leeyahay gaal waaye, kii kale kuwii taageeraya markay ninkan arkaan waxay leeyihin gaal waaye. gaalnimada waxay noqotay shay weyn oo mataqaanaa dadka lagu xukumo. meesha u dambeysay macnaha qofka la gaarsiiyo in qofka carada u qabtid dhan kusoo gabagabaysid gaal waaye, ma sahlana runtii. kelmadaas waa kelmad weyn waaye. marka haddii qofkaas aa ku xukuntay gaal uusan ahayn, ay gaalnimada ay mataqaanaa cara ka keentay ama mataqaanaa u tala gashay inaad ku durtid oo kula dagaashid, runtii kelmadaas meel aadi mayso, way soo noqonaysaa midkiinin usoo noqonaysaa. haddii asiga u ahaa waa ka, hadduusan ahaynne adiga dhahay ereygaas ay kugu soo noqonaysaa. nacuudu billahi min dalik. allah ka magangelaynaa arrinkaasi inuu ilaahay subxana wa tacala naga dhigo kuwa gaalnimada la degdego. allah ka magangelaynaa kuwaas, sababtoo erey fiican maha. qof walbo oo isku dhacdiin ama wax isku maanaafti haddaa ku xukuntid gaal inuu gaal yahay, runtii wax sahlan maahan. weliba dadka sidaas sameynaya waxay u bayin dad caamo ah, aanan waxba ka ogeyn cilmiga diinta islaamka, xukunka ka dhalanaya ereygaas ay dhahayan ogeyn, iska dhahayo kumintu iska qoraya bis gaal waata. qofkan wuxuu dhahay xoogaa waa khilaaftay,
markaa reply soo dhahdo waxoogaa arag inaa khilaaftay wuxuu ku leeyahay gaal hata adigana khalaas. marka ma fiicna ereygaas, waa erey aad u xun runtii, yaa liska waaniyo. dadka kale walaalaha ah sii gaarsiiyo insha allah. kanaalkan hadda ayga daawanaysid xasanaad, haddaadan subscribe saarin fadlan waa kaa codsanayna in aad subscribe saarto insha allahu tacaala, oo aad mataqaanaa kheyrka sii fidiso. kanaalkan waxaa ugu talagalay wacyiga iyo mataqaanaa dadka in waxyaabaha aan maaragtay isleeyahay bal waa xasuusin kartaa inaa xasuusiyo. wax cilmi idin kama badni intiina badan, laakiin wixii xasuusin ah ilaahay subxana wa tacaala ayaana amray, wadakir fa ina adikraa tanfacu lmu'miniin. awaanada kuwaasay anficaysaa mu'miniinta ah. marka ilaah naga dhiga dhammaanteen kuwa iimaan khaalis ah laga helo. ereyga gaalnimada aan ahay aan kula degdegin dadka walaalahood ah ee muslimiinta ah. qofka muslimnimadiisa siday u caddahay ilaa ay ugu caddaato gaalnimadiisa laguma xukmin karo sharciyan. ilaah subxana wa tacala naga dhiga kuwa xadiiskan ku camal fala siina faafiya insha allah. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanaya kanaalkan inaa insha allah sii fidisaan oo aad insha allah soo qaataan oo kor u soo qaadaan insha allahu tacaala. aada ugu mahadsantaha daawashada muuqaalkan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.